جماعة ونكسن صاحب يال waxaan u maleynaa qof kasta meesha uu jecel yahay uu ku jimicsanaya maanta waxaan idin soo gudbinaa jidka kamid ah jidadka Muqdisho waliba kuwa ugu dhaadheer laakiin aan dhisme helin oo burbursan jidkaasi hore in kaga sheegayo magaciisa waxaan rabaa inaan garataan adinka anigana qaybaha dambe aan kaga sheegi doonaa du'aale jidkan wuxuu isku xiraa ilaa gobolada dalka Soomaaliya waa jid dheer haddaan qaldarin waxaan dhihi karaa waa jidka ugu dheer jidadka ugu waaweyn Muqdisho laakiin weli waa burbursan yahay oo dhisme ma helin inta badan jidka kale waa dhismeen oo waa la dhisay sida wadnaha Makaal Mukarrama Sodanka iyo kuwa kale badan maadaama aan biri la soo dhaafay soo gudbinay jidadka dhisnay toddobaadkan waxaan jeclaystay bal ku aan dhismin in ayana eegno si baraarug bulsho loo sameeyo dawladda qudheedana loo tuso in jidkan oo ah mid muhiim ah degmooyin dhowrana isku xira iyo guud ahaan dalka oo dhanba qaybo badan oo kamid ah gobolada dalka koonfurta ku yaala aanu dhisme helin sidaa daraadeed muhiim ah in jidkan la dhiso si uu qayb uga qaato fududeynta socodka gaadiidka iyo dadka bilicda magaalada iyo horumarinta caasimadda magaca jidka weli waa halxiraale qaarkiin way yaqaanaan kuwana ma yaqaanaan qaybaha dambe ayaan idinkugu sheegi doonaa laakiin intii garatay commentiga noogu soo qorto jidkan iyo wixii ay ku xusuustaan ama waxaa ku xusuusato qof waxba ku xusuustaa iyo xilligii kugu dambeysay ee aad marto muuqaalka haddii uu nuxnuxsanayo dabcan waa jidka oo burbursan sidaa daraaddeed ayaa laga yaabaa in muuqaalka uu nuxnuxsado Muqdisho maanta oo jimco ah maalin roobad ayay u tahay oo roob ayaa ka da'ay meelaha qaar weli roobaa ka da'aya cirka waad u jeedaan daruur ayaa saaran waayahay waxaan jeclaystay marka inaan bal idiin sheego halkan waxaan hadda soo gaarnay isgoyska warshadii taraqii sigaarka jidkan waxaa ka imaanaa Baarubax isgoyska Baarubax ayuu ka imaanaa kii warshadaha soo galaan isaga waa dhisan yahay laakiin jidkan ma dhisna marka jidka maanta aan idiin soo duubay waa wadada warshadaha ee Muqdisho warshada taraqii sigaarka ee hadda soo dhaafnay waxaan ku sii soconaa dhinaca iyo jaamacadda Simad iyo ilaa Tafeeko oo ka soo horeysa ilaa isgoyska ifka xalan aan tagi doono du'aale laga yaabaa in jidkan goobo ganacsi oo qurxoon iyo dhismayaal qurxoon badan aysan ka muuqanin haddii uu dhismi lahaa waxaa laga yaabaa in isbeddelku inta ka fiicnaan lahaa halka jidad kale caasimadda wadooyinka goobo ganacsi oo badan ay ku yaalaan dhismooyin cusub laga dhiso marka jidkan burburka ayaa laga yaabaa inay qayb ka tahay inaan ganacsiga iyo dhismooyinka ku yaala wadada hareeraheeda aan si wanaagsan loo dhisin ama bilicdoodaba aysan soo jeedin haddaad aragtid
hadduu allid waxaan isku dayi doonaa toddobaadyada soo socda laga yaaba inaa jidadka igu nacdeen oo aan soo gudbinayo jimco kasta oo qaarkiina is leeyihiin meel kale ayaa fiicnaan lahayd waa ila wadaagi kartaan wixii aad jeceshihiin inaan soo duubo si aan ugu soo gudbiyo anna waxaan qorsheynaya hadduu alla idmo inaan waxyaabo kale idiin soo duubo oo aan jidadka keli ahayn goobo kale warshaddan waa taqaaniin warshaddii biyaha caafi hadda shirkad kastoo samaysa biyaha oo caagadaha ku jira caafi ayaa la yidhahdaa nooc kasta yihiin dadku waxay ku dhahayaan biyaha caafi marka shirkaddan ayaa qaata wixii dhan maadaama aan isleeyahay iyada waxay ka mid tahay shirkadii ugu horreeya bilaaba inay sameeyaan biyaha la filtray ama biyaha nadiifka ah qofka soo kulay biyo caafisi waxaa lagu soo dhiibay caaga ee shirkad kale qoranta jaamacadda simad waa meeshii ugu horreysay ee laga bilaabo jaamacaddan dhismihii ugu horreeyay jaamacadda laga bilaabo waayo hadda aadaa loo dhisay oo waa la qurxiyey marka qaarkiin waqti horaa ugu dambeysay jaamacadaha ugu faca weyn ayay ku jirtaa dalka jaamacadda simad marka hore macad ayay waxaan jirtaa laakiin marka dambe jaamacada laga dhigay waa jaamacadda ay madax ka soo ahaayeen madaxweynaha hadda dalka talada haya xasan sheekh maxamuud iyo mas-uuliyiin kale oo dalka xilal kala duwan ka qabtay hadda waxaan kusii socnaa dhinaca iyo ifka xaalin waddadan waxay ka mid tahay meelihii ay dagaalada culus ka dhaceen xilliga ay ciidamada Itoobiya dalka joogeen gaar ahaan markii ay doonayeen inay qabsadaan garoonka istaadiga Muqdisho askar badan ayaa halkan looga dilay gaadiidna waa lagu guday dhismaha xero jarmal ayaa noo muuqda hadda xero jarmal waa tan meel caana ayay iyadana ahayd oo waddadan ku taala warshada kor waxaa idin kaga muuqanaya garoonka istaadiga Muqdisho xero jarmal waa tan soo gaarnay hadda isku ifka xalan iskan waddan waxay aadaa dhinaca Alkamiin oo garoonka ay dhinaca ka marta dhinacna waxay aadaa xaafadda Gubta isku ayaan hadda soo gaarnay halkan idin muuqda waa isku ifka xalan qaar badan oo idinka mid ah aad bay xusuustaan oo yaqaanaan intaan aqoonna bal hadda bartaan wadayneyle iyo warta nabadda ay halkan kala qaybsano marka waa tan waddadii aadaysay Alkamiin dhinacan kalena waa waddadii aadaysay xaafadda Gubta waddadaas ay aadaysay
qaar muuqaalada way dheeraadaan maadaama wadooyinku dheer yihiin marka dadka qaar laga yaabaa inay jecleen muuqaalka dheer qaarkiin waxaa ku xisaabtamaysaan internetka in kugu jira daatada oo ma jeclidin inaa waqti dheer wax fiirsatin inay ka dhamaatay hadiidiisa marka see jeceshiin inaan gaagaabiyo oo meelaha qaar ka tago mise inaan sidoo ku dhaafo waa ila wadaagi kartaa haddana garoonkii ayaan weli ku soconaa istaadio disho hadda noo muuqato waddadii daarusalaam loo aadayay sida idiin muuqata xaafadda daarusalaam waa waddadan dheer ee jalaal daauud dhinacan ka imaata isbartiibada soo dhinac marta dhinacana daarusalaam ay aadaa jidkan ay ka soo baxayaan gaadiidka mootada iyo kuwo kale kusii socdaan halkan waa miisaanka dhuxusha waa caan goobtan iskuiska ayaan kusii soconaa laakiin waa meelaha dhuxusha ugu badan lagu soo dejin jiray inkastoo hadda dadku ay gaaska isticmaalaan dhuxushu isticmaalkeeda meelaha qaar u yaraaday laakiin halkan waxay caan ku tahay dhuxusha miisaanka dhuxusha la yihahdaa xaafadaha muqdisho meelaha camiran ama iskuisyada aadka u camiranay beri ka mid ahayd inkastoo hadda ay roon tahay laakiin sidii hore maaha isgoyskii waa kana waddadan waxay aadaysaa dhinaca tawfiiq hotel tawfiiq ay aadaysaa waddadan waa tii aadaysay iskuulka Axmed Gurey dad badan ka soo baxay iskuulka Axmed Gurey hadda waxaan ku soconaa xaafaddii Carafaad dalcaddii miisaanka dhuxushaan kasii dheereynaa hadda ay u dambeysay laakiin waqti waxaa jirtay aan aad u isticmaali jirto isgoyska Carafaad ayaan hadda soo gaarnay isbitaalka halkan ayuu ku wali jiray waa qaybta hore dhinacan maana waddada ku xigta halkan isbitaalka Carafaad halkan ku wali jira dhinacan ujeedaan marka miska ayaan kusii soconaa waxaa meeshaan ay sidoo kale caan ku tahay labaajada mahadal labaajada waa noo muuqataa hadda marka waa tegaynaa labaajada waa tanaa labaajada mahadal waddadan
dhisme ma helin burbur xoog laa ka muuqda jeedka ugu waaweyn muqdisho marka la fiiriyo waa waddada keliya ee aan la dhisin oon dib u dhis lagu samaynin waddadan waxay tagtaa ilaa isgoyska xoosh ayay tagtaa dhinacan kalena waa waddo isku xirta gobollada dalka ee marta ex control balcad ilaa sii socoto marka waa waddo dheer oo weliba marta meelo badan sariica caymiska ayaan soo gaarnay waana caymiska dabaqyada waa kuwaana dabqyada waa badan yihiin meelaha qaar geedaha qariyeen laakiin dabaqyada waa kuwaas saas idin caymiska hadda waxaan soo gaarnay warshadda cabitaanada samaysa ee Coca-Cola cabitaanka ugu badan ee magaalada la geeyo Coca-Cola halkan ayaa laga qaadaa waa xaruntooda ugu weyn hada warshadda Coca-Cola halkan waxaa wadda jiro garow meelaha iyana oo caanka ay ka mid tahay waddadan warshadaha marka laga hadlayo isbitaalkan sidoo kale waa taqaaniin dad badan ka mid ah isbitaal caana isbitaal Shifa warshadii baastada ayaan soo gaarnay warshadda baastada warshada caanka meel mar ay fariisan u ahayd ciidamadii Ethiopiyaanka derbigan wareegsan waaye halkan waxaa ku yaala garoon kubadda lagu ciyaaro roob ayaa marka yimid marka hadda muuqaalka meelaha qaar sifaan fahmaysa warshadda baastada waatan hay hortiina waxayna kaga muuqdaa waa isgoyska ex control iskoolkan waa taqaaniin qaarkiin oo badan iskuul alcimra breefadka dad badan waa kasoo bixinaa maleena isgoyska ex control ayaynu soo gaarnay halkan ayaan ku ekeynaa saaxiibayaal muuqaalkeena toddobaadkan meesha aad jecesha toddobaadka dambe inaan soo duubno waana la soo wadaagi kartaa khayr baan gelinayaa